daawadayaal kusoo dhawaada wararkeena gorfeynta daawada waxaan ku soo qaadan doonaa dowladda federaalka Soomaaliya oo guusha Baydhabo war ka soo saartay lafta garana oo tiray qoraalkiisii iscasilaadii iyo waliba golaha mustaqbalka oo ka hadlay dagaalkani iyo waliba qodobo kala daawada dub muuqaalkan ku soo gaar subscribe share like comment daawashada daawatane waad ku mahadsantahay lafta garana oo tiray qoraalkiisii iscasilaada iyo golaha mustaqbalka oo ka hadlay dagaalka Baydhabo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis lafta garana oo saacada ka hor shaaciyay inuu iscasila ayaa hadda bogiisa Facebook ka tiray qoraalkiisii iscasilaada xilli uu haatan ku sugan yahay dalkaasi Kenya kadib markii uu galabta diyaarad ka raacay magaalada Baydhabo talaabadana iyo dirbo waxa ka dhashay hadalhayn iyo su'aalo la xiriira go'aanada culus ee lafta garana xilli uu maanta inta uusan u bixin magaalada Nairobi uu magacaabay wasiirka baariyada ee maamulka koonfur galbeed Axmed Maxamed Xuseen inuu noqdo kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed lafta garana ayaa markii hore isku haleynaya kooxaha mucaaradka ee dowladda federaalka ka soo horjeeda oo u muujinay garab istaag ayaa maanta ka badin waayay cambaareen markii uu dhacay dagaalkii Baydhabo golaha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin hogaamiyaasha mucaaradka iyo waliba madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ee war-saxaafada ay soo saareen si adag ugu cambaareeyay dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ku qaaday magaalada Baydhabo golaha ayaa ku baaqay in madaxweynaha Soomaaliya inuu si degdeg ah u joojiyo xiisad dagaal inuu dib uga soo laabto magaalada Baydhabo wada hadallada siyaasadeed ee ku saleysan dastuurka kumeel gaarka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu si degdeg ah aan shuruud lahayn u joojiyo dagaalka uu ku qaaday dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan golaha mustaqbalka Soomaaliya ay soo saareen sidoo kale golaha ayaa waxay si cad u muujinayaan in mas'uuliyadda wixii ka dhashay dagaalkan si toos ah u saaran tahay madaxweynaha iyo waliba cid kasta oo ka qayb qaadanaysa fulinta ama taageero siinaysa talaabooyinkan sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkan golaha mustaqbalka Soomaaliya waxay si adag u cambaareynayaan dagaalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku qaaday dowlad goboleedka koonfur galbeed golaha ayaa waxay si cad u muujinayaan mas'uuliyadda wixii ka dhashay dagaalkan oo ay jiraan dhiig daadasho burbur hantiyadeed iyo waliba xadgudubyo bini'aadanimo oo si xumaada in si toos ah ay u saaran tahay mas'uuliyadda wixii ka dhashay cid kasta oo ka qayb qaadatay waliba taageero siisa talaabooyinka sharci darrada sidoo kale golaha ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in xadgudubyada ka dhashay dagaalkan ay sababi karaan falal ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo waliba xeerka caalamiga ee xuquuqda bini'aadamka kuwaasoo gaari kara heer dambiye dagaal isla markaana leh mas'uuliyad shakhsiyadeed oo lagu qaadi karo heerka qaran iyo heer midnimo caalami ah haddaba iyadoo la tixgelinayo xaaladda adag ee dalka uu marayo sida abaaraha dhaqaale xumida iyo halis amni darre ka iman karta kooxaha argagixisada waxa uu goluhu ku baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu si degdeg ah oo aan shuruud lahayn u joojiyo dagaalka uu ku qaaday dowlad goboleedka koonfur galbeed in si buuxda loo ilaaliyo shacabka rayidka ah hantidooda iyo waliba hay'adaha dawliga ah in dib loogu laabto wadahadalo siyaasadeed oo ku saleysan dastuurka kumeel gaarka ah iyo dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu dambeyntii golaha ayaa waxay ku adkeysanayaan in madaxweynaha inuu ku waantoobo tallaabo kasta oo horin karta colaad sokeeye isla markaana dib u dhigi karta geedi socodka dowlad dhisidda midnimada qaran iyo xasiloonida dalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay guushii siyaasadeed ay ka gaartay hoggaanka koonfur galbeed ayaa sheegay in magaalada Baydhabo ay la wareegeen shacabka ka dhidhiyay xadgudubyada maamulkii hore dowladda ayaa sheegaysa in ciidamada qalabka sida ay ka jawaabayaan rabitaanka shacabka ay qaadeen howlgalkani maanta lagu guuleystay laguna wareegay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed ciidamada qalabka sida oo mas'uuliyadooda koowaad ay tahay ilaalinta midnimada xasiloonida iyo waliba dowladnimada ayaa isla maanta gaaray magaalada Baydhabo iyagoona ka jawaabaya rabitaanka shacabka si ay u gutaan waajibaadkooda loo idmaday ayaa lagu yiri war-saxaafada ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxay hambaliyo iyo waliba bogaadin u dirayaan waxgaradka iyo waliba shacabka koonfur galbeed ee sida diiran u soo dhaweeyay ciidamada qalabka sida iyagoo uu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada reer koonfur galbeed in ay muujiyaan deganaan midnimo iyo waliba wadajir sidoo kale waxay hambaliyo iyo bogaadin diiran u direen waxgaradka iyo shacabka reer koonfur galbeed oo sida diiran u soo dhaweeyay ciidamada qalabka sida iyadoo ay ugu baaqeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer koonfur galbeed in ay muujiyaan deganaan midnimo iyo waliba wadajir xilligan xasaasiga ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay muddo dheer ku mashquulsanaaday inay arrimaha dowladda koonfur galbeed lagu xalliyo tala ay u leeyihiin shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed hase ahaatee waxaa nasiib darro ah in talaabooyinkaasi wanaagsan uu ka hor yimid maamulka hore koonfur galbeed oo ku kacay falal abuuraya xiisad siyaasadeed
haddaba shacabka koonfur galbeed oo ka dhiidhiyey xadgudubyada maamulkii hore ayaa ugu dambeyntii maanta si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. Haddaba ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa mas'uuliyadda koowaad ay tahay ilaalinta midnimada, xasiloonida iyo weliba dowladnimada ayaa isla maanta gaaray magaalada Baydhabo iyagoona ka jawaabaya rabitaanka shacabka si ay u gutaan waajibaadkooda. Ugu dambeyntii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay xaqiijinaysaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed sida ay uga go'an tahay ilaalinta xasiloonida, badqabka shacabka iyo hantidooda, isla markaana aysan jiri doonin falal beegsi iyo weliba aargudasho. Ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda ee maamulka koonfur galbeed Axmed Maxamed Xuseen oo ah wasiir si weyn ugu dhawaa Cabdicasiis Laftagareen ayaa haatan noqday kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed. Laftagareen ayaa 7 sano kadib ka baxay sidii xukuumaddii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku keentay una bixin dalkaasi Kenya. Waxa uu kusimo u magacaabay wasiir Axmed oo noqon doona kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed laga bilaabo taariikhdu maanta ay tahay 3 Maarso 2026. waxaa madaxweynaha koonfur galbeed aanu magacaabay mudane Axmed Maxamed Xuseen ahna wasiirka maaliyadda oo noqon doona kusimaha. Laftagareen ku yiri wareegto uu madaxweynaha uu soo saaray ka hor inta uusan ka dhoofin magaalada Baydhabo balse goordhow la baahiyey. Wareegtadan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in wasiir Axmed uu xilkan sii hayn doono ilaa iyo xal kama dambaysa laga helayo. Laftagareen ayaa go'aankan uu qaatay si uuna u dhicin farqiga dastuurka markuu tixgelinayo xaaladda cakiran iyo qalalaasaha ka jira deegaanada guud ahaan iyo hubanti la'aanta ka jirta dowladda koonfur galbeed. Waxa uu saaray xeerka madaxweynaha ee ku saabsan kusimaha madaxweynaha Cabdicasiis Laftagareen oo wajahaya cadaadis militari iyo mid siyaasadeed xooggan ee kaga yimid dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii go'aansaday inuu baneeyo xilka maamulka koonfur galbeed. Si kastaba Laftagareen ayaa maanta lagaga adkaaday magaalada Baydhabo taasoo ahayd xarunta ugu dambeysay ee gacan ku haynta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaanba waxay gacanta ku soo dhigeen deegaanada kale. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in markii horeba ay doonaysay in Laftagareen la keenay Muqdisho balse ugu dambeyntii waxaa la isku raacay inuu u baxo magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Isla markaana dhanka kale waxaa la filayaa in magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ee koonfur galbeed ay gaaraan mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya saacadaha fooda nagu soo haya. Daawadayaal inta ayaan ku soo koobaya wararkeena. daawada muuqaalkan ku soo gaara subscribe, share, like, comment daawashada aad daawatana waa ku mahadsantahay.